asalaamu calaykum kulanti wanaag saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale waxaa idiin rajaynaya inay maalin qurux badan idii tahay muuqaalkan dhalinyaro badan ayaa naga soo codsaday dhalinyaro badan ayaa kommentiyo iyo fariimo caadiya noo soo diray ayagoo codsanaya bal qaabka loo sameeyo account paypal ah accountkan paypalka waa account banki online aad samaysanaysid adigoo jooga africa adigoo jooga Europe adigoo jooga Asia meesha doonto joogo wadamo badan ayaa accountkan laga heli karaa uu ka shaqeynaya marka accountkan bankiga waxaa lagu xiran karaa Facebooka waxaa lagu xiran karaa Instagramka waxaa lagu xiran karaa Amazon waxaa lagu xiran karaa Shopify eBay iyo website-yada kale ee alaabaha lagu iibiyo ayaa lagu xiran karaa marka waa account maaragtay dad badan ay maaragtay ay ku xiran yihiin dad badan ay account ka samaystaan oo anigu aan ka mid ahay account-kayga private-ka waa ii furayaa waxaan furtay ugu yaraan 3 sano ka hor ayaan account ka furtay marka maanta waxaan isku dayi doonaa bal inaan idinla wadaaga bal qaabka account uu qofka kaga furo karo bankigan paypalka la yiraahdo waana qaabka ugu fudud ayaan kugula wadaagi doonaa waana soo goobi doonaa oo waqti badan ma ku bixi doono waxaan isku dayi doonaa muuqaalo kale inaan sameeyo iyo barnaamijyo kale inaan edit gareeyo hadduu ilaahay ka raali noqdo marka waan soo koobi doonaa fadlan ila soco haddii aan ugu cusub tahay waa inoo farxad inaa nagu soo biirtid haddii hore noola jirtayna waxaan kaa codsanaynaa bal inaad muuqaalkan meel dheer aad gaarsiisid aad la wadaagtid dhalinyarada danaynaysa inay account paypal ah ay samaystaan marka ugu horeysa waxaad soo galaysaa browserkaaga aniga browserka waa ii furan yahay marka browserka aad heli karta ayaad soo furanaysaa kadibna googleka ayaad search garayna googleka markaad search garayso googleka markuu kuu soo baxo aniga markii horeba waan soo furtay sababtoo shaashadayda qeybaha gadaale dokumentiyi waxyaabo sira ayaa ii saaran oo aana jeclaysanaya marka idinla wadaaga marka browserka ayaan ka bilaabay muuqaalka marka waxaad soo galaysaa marka googleka markaad soo gasho halkan ayaad waxaad ku qoraysaa paypal midka ugu horeeyo ayuu kuu soo saarayaa oo ah paypalka markaad dooratid wuu kuu soo saarayaa waxaa kuu soo baxaya paypal send and save money with paypal USA marka bankigan maraykanka ayaa laga leeyahay waana bankiyada ugu caansan ee ugu faca weyn ee dalka maraykanka iyo guud ahaan caalamka marka paypal.com ayaad soo galaysaa iska ilaali accountnada kale ama website-yada kale ee aan saxda ahayn ee aan lahayn maaragtay ama aan ahayn paypalka dhabta ah marka paypal.com ayaad galaysaa calaamada saaran ama loogada saaran waad ujeedaa 2 b mid buluug tiqa iyo mid buluug madow ku jiro ayaad arkaysaa marka kan ugu horeeya ayaan dooranaynaa kan ugu horeeya markaan doorano si aan idinkugu fududeeyo English ayaan ka dhigayaa oo luqadda Faransiisku ii saaraya laakiin English ayaan ka dhigayaa English markaan ka dhigo sidaad hadda halkan ka arki kartid waxaan ku jirnaa paypalka ayaan ku jirnaa wax account ah oo aan leenahay ma jirto account furan ma jiro marka account ayaan halkan aan ku create gareynaynaa marka meeshan waa labo professional iyo staff professional iyo staff labadaa ayaa kuu soo baxaya markay labadaa kuu soo baxaan waxaan dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay weli waxaa ii saaran ufqa ankonta ii saaran halkaas adiga open an account ayaa ku soo koraysa sababtoo ah weli faransiiskii ayaa saaran inkastuu pageka dhan u wada bedelay haddana qaybta ma uusan bedelin marka connection markaad account leedahay ayaa ku xiraya markaadan lahaynna waxaad dooranaysaa open an account ayaa dooranaysaa meeshan ayuu ku soo saarayaa open account markaad dooratid halkan ayuu ku keenayaa waa meeshii hadda ayaan galaynay laakiin qaab fudud ayaan ku tusayaa marka meeshan marka labu ku siinaya mid staff ah oo ah inaad lacag dirtid send money and manage your money all from one setup application adigoo dooranaya ama professional marka account-kaaga hadduu yahay account iska caadiya oo aan professional ahayn ee aadan rabin inaad ku xirtid business account-kaaga ama store-kaaga halkasaa ujeedid sell online in store
waad ujeedaa collection donation growth your business waxyaabaha mukale marka anagu midkan caadiga ayaan dooranaynaa oo staffka iska caadiga ayaan dooranaynaa marka start ayaan leenahay qaybta hoose ayaan dooranaynaa marka waxa u baahnaa marka inaad email aad leedahay marka ugu horeyso waayo maahan Google halkan waxa lagu abuurayo marka email ayaa dooranaysaa meesha luqadina ka bedelo ayay noqonay laakiin wadanka joogo iska dhaaf waxba isku mashquulinin meesha ayaa email ka dooranayna marka emailka waxaan gelinayaa saaxiibadayna ay fariimahan ugu soo diraan emailkaada geli adiga emailkaad leedahay gasho emailka markaad gashato markaad emailka soo gelisid waxaad leedahay next okay next markaad dhahdo wuxuu ku weydiinayaa telefoonka ayuu ku weydiinayaa lambarka telefoonkaaga ayuu ku weydiinayaa marka telefoon lambar ayaa anaga gelinaynaa anaga waxaan joognaa wadanka joogo koodkiisa ayuu siinayaa marka adiga waxaad gelinaysaa wadankaad joogtid ayaad gelinaysaa halkan ayaad ka dooran kartaa wadamo badan ayuu ku soo saarayaa sida Denmark Spain iyo wadanka Greek iyo meelaha ayuu ku saaray marka anigu halkaa joogo waa Faransiiska automatically ayuu igu dooranayaa marka waxaa gelinayaa lambarkayga ayaa gelinayaa marka waa idinka qaranayaa lambarkayga arki maysaan raali noqda alright marka lambarkayga aan geliyo waxaad dhahaysaa next ayaad dhahaysaa next markaad dhahdo wuxuu kuu dirayaa koodka markuu kuu diro koodka ayaa gelinaysaa si uu u xaqiijiyo in lambarkaaga uu sax yahay ama lambarka adiga aad leedahay marka lambarkaaga koodka uu kusoo diro ayaad gelinaysaa markaad koodka geliso si automatically ayuu u qaadanayaa oo markaa wuxuu kuu soo bandhigayaa qaybta xigta oo ah create password oo waxaad abuuraysaa ama waxaad create garaynaysaa password ayaad create garaynaysaa passwordka ugu inuu noqdo password aad u adag password aan la qiyaasi karin password aan 2 3 4 5 6 ilaa iyo 10 20 aadan geynin inaad samaysid oo aad isticmaasid maaragtay xarfo nambaro iyo calaamado ayuu ku leeyahay halkan sidaad ka aragtid ugu yaraan waa inuu noqdaa 8 ilaa 20 sidoo kale waa inaad isticmaashaa characteriska letters numbers and samples tusaale calaamadahaas ayuu ku siinayaa tan marka aniga waxaan create garaynayaa passwordka waa idinka qarinayaa si aadan u arkin okay passwordkaygii waa soo geliyey waxaan rajaynayaa inuu ii shaqaynayo oo qaybahan sidaad ka aragtid dhammaan wuu aqbalay wuu qaatay sababtoo ah waxaa ku daray xarfo waaweyn waxaa isticmaalay symbol waxaa isticmaalay lambar ayaan isticmaalay marka wuu aqbalayaa almost asaga halkan tig ii saaray maybe inuu diido waa suurtagal haddee wax yara qaldan yihiin marka inuu ii shaqeeyaan rajaynayaa hadduu shaqey waa ku celinayaa sababtoo ah wuxuu ku dadaalayaa in password adag aad create garaystid marka next ayaan leeyahay okay next markii aad dhahdo halkan wuxuu ku leeyahay personal information ayaa lagaaga baahanyahay oo ah xogtaada shakhsiyadeed ayaa lagaaga baahanyahay waxa lagaaga baahanyahay waxay tahay iska xaqiijiyaa lagu leeyahay tusaale make sure this information matches your government issued ID iska xaqiijiyaa lagu leeyahay iskana hubi in xogtan ay tahay kaarka dowladda ama baasaboorka ama ID aad haystid inay isku mid ay yihiin tusaale oo kale waxaa lagaa rabaa nationalityga waxaa lagaa rabaa magacaaga waxaa lagaa rabaa last nameka ama first name iyo dateka ayaa lagaa rabaa marka ani nationalitygayga waa Soomaali qof Soomaaliya ahay Soomaaliya ayaan dooranayaa okay halkan ka raadi wadankeena kuma jira miya uu ku jiraa dabcan waa qasab
okay, Soomaali ayaa dooranaysaa. Nationality-ga Soomaali ayaan ahay. Waddankan waan ku noolahay mooyees dhalashadiisa ma haysto, marka Soomaali ayaan ahay. Haddii aad haysta xataa waad geli kartaa, sababtoo ah waddankaad ku sugantaa dhalashadiisa ayaa mar walba muwaadinimo lagaga aqoonsan yahay. Marka waxaad gelinaysaa magacaaga ayaad gelinaysaa, waa first name-ka waa magacaaga. Haddii lagu yiraahdo Caasha, Caasha geli. Haddii lagu yiraahdo Cali, Cali geli. Marka aniga Cusmaan ayaan ka bilaabayaa. Magacayga waa Cusmaan. Magacayga aabahayga ayaan gelinayaa oo idinka qarinayaa, sababtoo ah magacyada 3 magac ayaa badanaa la qoraa. Marka labada magac ugu horeyso waa caadi. Marka taariikhda dhashayna waa idinka qarinayaa. waxaa leeyahay marka okay, waxaa soo geli marka taariikhda dhashay, waxaa soo geli magacayga, magaca aabahayga iyo awoweyga iyo dhalashadayda ayaa markaa soo geliya. Marka maxaa sameynaa marka next ayaan leeyahay, waayo xogtan waxay maajgaraynaysaa xogta igu qoran baasaboorkayga ayay maajgaraynaysaa. Marka next ayaan leeyahay. Hadhow hadday cilad imaato dukumenti lagu weydiiyo xaraf uu ka qaldan yahay ama magacaaga uusan iswaafaqsanayn way adkaanaysaa. Haddii account-ka lacag ku jirta in lagu sii fasaxo, marka inaad ka taxadirtid ku dadaal. Next ayaan leenahay. Okay, next markaa dhahno halkan waa muhiim. Wuxuu ku leeyahay your address. Make sure that this address is your primary resident address. PO box-kaaga not accepted. Ujeedaa wuxuu ku leeyahay marka iska xaqiiji in address-kan uu yahay address-ka aad degan tahay ee saxda ah inuu yahay. Iska xaqiiji ayuu ku leeyahay. Marka address-ka ayaan gelinayaa, waa idinka qarinayaa, sababtoo account hore u yeeshay. Account-ka labaad idinka ayaa idin tusayaa qaabka loo samaysto. Marka ilaa iyo dhamaadka waa samaysan kartaa, dhowr account waa samaysan kartaa. Kaliya muhiimadda waxay tahay inaa markaad u baahato aad maaragta markaa account-ka hadduu ka xiro account kula isticmaali kartid, ama account-kan business u sameyn kartid, midna private ka dhigi kartid. Marka qasab maahan, laakiin si aad wax u barataan aad u faa'iidaan ayaan u sameynaya. So marka address-kayga ayaa gelinaya, waa idinka qarinaya. Marka waa waxyaabaha privacy-ga ayay ka mid yihiin. Marka aan idin dhahayo waxaa idinka qarinaya email-kaaga iyo magaca last name-kaaga iyo telephone number-kaaga iyo address-kaaga saxda ah. Waa privacy-gaada, waa waxyaabaha sirta ku ah ee aadan u baahnayn inaad dad la wadaagto. Laakiin banka markaad furanaysid, markaad xafiis dowlad wax ka xariisanaysid, waa laga maarmaan in aad maaragtay sheegatid si meelahaas ay noqdaan meelaha laga heli karo, xogtaadan lagugu soo diri karo, caddeemakaagan laga heli karo. Marka address-kayga ayaan gelinayaa. Address-kan wuxuu noqon karaa wadada inaad gelisaa lagaa rabaa, wadada magaceeda inaad gelisaa lagaa rabaa, waxaa lagaa rabaa magaalada, iyo waxaa lagaa rabaa koodka. Tusaaloo kale wadamada kood ay leeyihiin, wadada magaceeda, wadada lambarkeeda, guri nambarka, wadada uu guriga ku yaalo, iyo magaalada uu ku yaalo, iyo koodka. Waa koodka tusaaloo kale Soomaaliya iyo wadamada Afrika qaarkood ma laha, laakiin wadamo leh ayaa jira sida Kenya iyo meelaha Ethiopia iyo inay leeyihiin Argentina qaarkood. Soomaaliya laftigeeda waa la heli karaa oo wado waad ka dhigan kartaa oo markaas wada caan ah. Address-ka keliya waxaa la rabaa xogta inay muhiim ay noqoto. Markaad address-kaaga soo geliso oo aad marka halkan ay imaatid, labada qayb ee ugu hooseysa waxay tahay you agree to People's Term of Service and Privacy Policy. For more information see your rights withdrawal. Mujada halkan waa inaad iska hubisaa haddii aad rabtid inaad gudaha sii gashid privacy-ga iyo service termskooda inaad rabtid haddii aad rabtid. Marka labadan ayaad dooranaysaa oo waxaa leedahay conditionadan waan aqbalay, xaaladahan waan aqbalay. Qaybta ugu horeysa waxaa weeye you agree to receive marketing communication. Change this option is your setting at any time. Kan qasab maahan, haddaad doonto waad ka qaadi kartaa. You agree to receive marketing communication ka markii suuqeynta iyo waxaa laga hadlayo inay kuu soo dhacaan, qasab maahan. Marka haddaad doonto waad dooran kartaa oo adiga ayaa choice-ka iskale.
fahmaysaa wixii kor oo kusoo kordha xooga muhiim hadday jiraan oo kale marketing ku aadan suuqgeynta iyo waxyaabaha ku aadan. Marka accountka markaad saa samayso adresska aad geliso simple waxaad leedahay accept an open account. Okay, halkan marka waddankaad joogo ayaa micno u samaynaya sababtoo iga diiday waxay tahay hadaan ii soo saaraynin postal code-ka iyo iima soo saaraynin iyo magaalada maadaama waddan nabada aad joogo. Soomaaliya hadday markaa ku qoray muusan soo saarin laakiin maadaama Faransiiska joogo sidaa ayuu ii leeyahay postal code-kii laakiin waan israaciyey hadda wax dhibaataa mala mar kale waa idinka qarinaya. Marka waxaa leeyahay marka postal code-ka deganahay iyo waxaa gelinayaa magaalada aan deganahay. Okay, labadaa markaa geliya hadda waa confirmation caadi ayuu u aqbalayaa. Halkan ka raadi uu leeyahay haddii aad u baahan tahay laakiin halkan lagama helayo oo just meeshan ayaan gelinaynaa haddii halkan laga heli karo. So marka waxaa isku dayaynaa marka inuu noo shaqeeyo mandatory uu leeyahay laakiin waxaa isku dayaynaa inuu aqbalo. Okay, halkan ayaa search ka leynaa marka si aan adresska uu si Google-ka uu yaqaan yacni Google-ka inuu aqoonsan yahay iyo in kale si uu macnaha u xaqiijiyo. Walaa uu soo saaray magaaladiisa automatically u soo saaray marka uu shaqeynaya markan adress tu ma laha laakiin wadadii iyo wixii meeshii kore koowaad aa geliyey ayaa xagga geliyey sababtoo ah automatically ayuu u search gareeyey uuna soo saaray. Accept and continue aan leenahay marka create marka perfect. Hadda wuu inoo sameeyey account-kayna wuu inoo sameeyey Faransiis ayuu nala aaday laakiin wax oo hadda aad u culus maahan. Yacni optionkan waa optionaad adiga u bannaan tahay inaad lacag tirto inaad wax iibsato waxaasoo ku leeyahay laakiin not now ayaa dhihi kartaa markaad samaynaysa. Laakiin aniga hadda Bamednow ayuu iisoo qorayaa maadaama Faransiis ay tahay. Dadka ku xiran waa ujeedtiin 400 oo milyan oo qof ayaa PayPal-ka isticmaala. Waa banki aad u weyn dunida oo dhan marka laga hadlayo 400 oo qof ayaa isticmaala. Marka haddii aad rabtid inaad wax online ka iibsatid haddii aad rabtid inaad online-ka lacagaad ugu dirtid ayuu labadan option uu ku siinaa. Marka Bamednow aan leenahay then marka meeshan wuxuu ku leeyahay English ayaa idinkugu turjumayaa si aad ogaataan kan. Okay, iska leeyahay sababtaa waxaad u culus maahan security-ga iyo waxaasuu ka hadlaya. So marka meesha markay marayso waxaa leeyahay ma ku xiri kartaa adresskaaga wuxuu leeyahay ku xir register maabu ku leeyahay yacni account haddii aad leedahay tusaale oo kale bankiga Soomaaliya aad ku leedahay accountkiisa inaad ku xirtid ama bankiga dibadda aad ku leedahay accountkiisa inaad ku xirtid ayuu kuu soo bandhigayaa. Marka qasab maaha not now aa leedahay not now iska dheh. Okay, not now markaad dhahdid wuxuu kuu samaynayaa marka inuu ku siiyo magacaad markaa isticmaasho. Faransiis u bedelay laakiin wax dhibaataa ma laha oo tusaale wuxuu ku leeyahay magaca miyaad isticmaalaysaa. Tusaale oo kale Cusmaan Jimcaali Xuseen uu leeyahay waa magacayga ma magacaasa ayaad isticmaalaysaa oo kaarkaaga iyo waxaa lagu soo dul qoraya haddii lacala kaar iyo waxaad ka dalbatid. Marka haddaad doontid waxaad dhihi kartaa continue ayaad dhihi kartaa haddaad doontidna waxaad dhihi kartaa Bamednow ama not now ayaad dhihi kartaa. Tusaale not now waa iska leenahay waxaan hadda diyaar uma nihin qasab maahan haddaad doontana waad dhihi kartaa. Marka halka markay imaato wuxuu ku leeyahay accept the paiement avec votre adresse ayuu ku leeyahay. Marka meeshan kood ayaa lagu soo diray koodka ayaad gelinaysaa oo emailkaada ku soo dhacaya. Marka koodka geli 10 daqiiqo ayaa haystaa 10 daqiiqo markii aad geliso waa kan samaynta markuu uu maray kaliya waxa ma wax lacag kaaga baxay waa waxaad u fudud simple ah. Numberkan qalday
okay, lambarkaan gelinaynaa markaan gelinay almost accountkeena uu inoo furay lambarka marka hadda gelinay accountkeena saan ayuu noogu furan yahay marka accountkaa saan ayuu marka kugu shaqeynaya marka waxaad doontid ayaad ka samaysan kartaa dhexdiisa sidaad gudaha aad ka arki kartid gudihiisa sidaad hadda aad ka arki kartid oo wax walbo halkan ayaad ka arkaysaa no fee for you or you love it when you send it lacagahan waa lacag lagama qaadayo markii aad banki aad diiwaan gelisay oo qof aad wax u diraysid account-kaaga sidaan ayuu kuugu furan yahay hay-adaha la tabarucaadda laga caawi karo inaad tabarucaad u dirto hay-adaha dadka caawiya waxaa soo qorayaa waxaan u baahannahay maahan account-keena marka hadda sidaan ayuu noogu furan yahay wuu kuu shaqaynayaa account number wuu ku siinayaa wax walbo wuu ku siinayaa hadhow waxaad ku gelaysaa marka passwordkaaga iyo waxaad ku gelaysaa iyo emailkaaga passwordkaaga ayaad ku gelaysaa oo accountkaagii sidaan ayaa lagugu gareeyey oo wax hadda kaa maqan ma jirto fariintu kuu soo diraya waa kaa wuxuu ku leeyahay welcome to PayPal. You have just opened a PayPal account and are ready to start making payment with PayPal worldwide and sending money to your friends. Ayuu ku leeyahay yani fariinta ayaa kaaga imaanaysa in accountkaagii lagu gareeyay inuu diyaar yahay inaad lacago aad ka dirto lacago aad adduunka saaxiibadaada aad u dirto iyo attached user agreement dadada waxaan ku leeyahay yani heshiisyadii iyo waxyaabihii waxaas uu ku sheegaya waxyaabaha laga heli iyo waxyaabaha ayuu ku sheegaya so it's not important marka waa fariin oo ku sheegayo in kaliya lagu furay account-kaaga uu ku shaqeynayo marka go home ayaa leenahay then go home markaan dhahno almost account-keena uu shaqeynayaa oo wax naga qaldan ma jiro account-keenu waa active balancegeena waa zero wax lacaga nooguma jirto sababtoo ah almost lacag maana dhigin qofkii doonana wuu dhigi karaa soo marka xataa waxaa jira application oo aad la soo degi kartid oo ah download the application halkan ayaad ka download garaysan kartaa settingkaaga ayaad fiiri kartaa account-kaaga siduu yahay ayaad fiiri kartaa hadaad doonto sawir ayaad saari kartaa waxa waa xogteyda pagekan waa xogteyda kuley blur ayaan idinka saarayaa si aadan u arkin iyo bankiga ID-ga laysiiyey iyo wixii dhammaa ayaa halkan ku jira soo marka waxaa isku dayaa marka inaan intan aan kusoo gabagabeeyo account-keena active ayuu inuu yahay waxaad ku xiri kartaa facebookgaada waxaad ku xiri kartaa account-nada storeyada aad ku leedahay Amazon waxaad ku xiri kartaa Shopify eBay iyo account-nada kale ayaad ku xiri kartaa haddii aad rabtid marka inaad ku xiratid sidoo kale waxaa lacag ugu diri kartaa familkaaga saaxiibadaada iyo qaraabadaada ayaad dhaqaalo ugu diri kartaa oo markaaad kaga faa'iidey kartaa haddii ay leeyihiin account PayPal ah oo markaasi ay isticmaalaan wadamada ay markaa ku sugan yihiin hadduu available uu ka yahay ama markaasi laga heli karo marka account-ka PayPal-ka qaabkan fudud ayaa loo sameeyaa dabcan waxaa rajeynayaa inaan degdegin oo aan si tartiib ah oo simple ah oo fudud aad ku fahmi kartidna aan kuugu sharaxay haddii aad wax fahmi weysid qaybta faallada igula wadaag aragtidaada meesha aad fahmi weysay iyo qaabka aad u baahan tahay in lagu caawiyo wixii aragtiya iyo barnaamijyo kale oo aad xiiseynaysa hadday jiraanne waxay igula wadaagtaa qaybta faallada muuqaalkana meel dheer gaarsiiya si dhalinyarada Soomaaliyeed danaynaya inay online-ka dhaqaale ka sameeyaan bank account-yada ay u baahan yihiin inay ka faa'iideystaan ay kaga faa'iideystaan marka halka ayaa muuqaal ku soo gabagabeynaya tan intaan muuqaal mid kale mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum mar kale.